السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواو channel كيغا حربا و FX ومركلا سو لابتي يو فيديو عصب إن شاء الله كاسو عن واحد للدونو حبكا أما قابكا لو استعمالو MT4 هدو ألدنا إن شاء الله تعالى أيان شرح دونا قابكا لو استعمالو MT4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan sharaxo cashar yar oo kooban oo ku saabsan sidee loo isticmaalaa MT4. waa basic. marka hore mobilkaaga afka ayaa waxaa ku degsanaysa MetaTrader 4 ama MT4. markii lasoo gaabiyo downloadkiisa Play Store ayaad ka helaysaa. Play Store ayaa si toos ugula soo degaysa. mar allaala markaad kala soo degto ayaad waxaad samayn doontaa insha allahu tacaala waad furaysaa. okay, waad furaysaa. mar allaala markaad furto kule hadda waa u samaysan yahay, laakiin waxaad rabtaa inaad soo samaysato akoon cusub Daymo ama Real Dualidmo. sidaas darteed marka qaybtan bidixdaada ah oo tarankarada ah ayaad klik ku siinaysaa. manage account ayaad ku dhufanaysaa. manage account mar allaala markaad ku dhufato ayaad waxaad tegaysaa ilaa meelahan dhowr account ayaa furan. plus ayaad leedahay. okay, plus mar allaala markaad ku dhufato waxaad ku tusin doonaa Daymo account oo ah tababar, macnaha akoon fake ah oo aan wax lacagaan oo dhabaana ku jirin. $1,000 $100,000 ayaa lagu siinayaa ilaa $100,000. so waa fake, micnaheedu wax kale ma ahan, waa trading. waa inaad ku samaysaa oo aad ku tababartaa suuqa sida qaabka saxan aad gurigeed aad ku tababartaa maalin walba. waana muhiim qofka hadduu Real leeyahay xitaa waa inuu Daymo account uu ku trade gareeya mar allaala markaad istaraatiijiyad aad tijaabinaysid ama howlo kale aad qabanaysid, maadaama aad Real account aadan ku tijaabin karin waa inaad Daymo aad ku tijaabisaa. okay, Daymo account waa sidaas, waa fake. waxaa loogu talagalay dadka cusub oo markaas suuqa fahmay amba markaas bilaabi raba in ay furtaan. laba qaab u furan kartaa: in mobilkaaga si direct aad ugu furato adoon isdiiwaangelinin. waxaa kale oo samayn kartaa inaad brokerkii aad iska soo diiwaangelisid. okay, inaad brokerkii iska diiwaangelisid oo aad gmailkaagii, phone numberkaagii, wax walba aad kusoo gelisid, ayaga ay kuusoo direen login iyo password. okay, login iyo password. markaas waxaad samaynaysaa qaab kale weyaa, laakiin markuu qofku cusub yahay oo kale uusan isdiiwaangelin oo kale automatically MT4 uu la soo dego. wuxuu sameynaya open Daymo account. brokerka ayuu iska dooranayaa XM, Vantage, Tikmail, IC Market, kuwa badan, FXTM, FX Primus, Pebblestone, kuwa badan aad iyo aad u fara badan soo koobi jiray. qofka marka midkii qanciyaa Vantage oo kale hadda meeshan saara Vantage ayaa ku dhufanaya Daymo account. informationkii oo kale waa tusaale waa kana magac iyo phone numberkaagii, numberkii iyo gmail. intaas markaad ku qorto emailka, then account type qaabku yahay waad dooranaysaa. lacagta aad ka rabto USD, Australian, Euro, Great Britain. okay, so waxaan dooranaynaa Vantage US oo kale aan dooranayna FX. waxaa lasoo gaabiyey Vantage FX oo company magaciisa USD. akoonka nooca noqon doono leverageka 25 ilaa waxaad haysataa 500 oo kale dooro 1 to 500. lacagta aad rabto inaad ku tababarato aad ku bilaawdo 3,000 ayaa u yar. brokerkan ilaa wuxuu ku siinayaa lacag 500 oo kun. I think hadaan qaldaneyn 500 5 million. okay,
5 million waa 60 wuu ku siin karaa 500,000 waa kana sidaa darteed marka qofka isaga ku xiranta waxaan dooranayaa $3,000 maadaama aan rabo akoon yar aan hadhow suuqa aan ku bilaabi doono waa inaan la qabsadaa qaabka ula tacaamuli lahay suuqa okay sidaas darteed maadaama aan rabo qaabka ula tacaamuli lahaa waa inaad isku tababartaa akoon aad iyo aad u yar inaad isku daydo inaad ka furto si aad ula qabsato waayo waxaa inta ku training gareyso ayaad hadhow meeshaas la tegaysaa akoon weyn haddii aad ku training gareyso hadhow akoon $200, $300, $500 waxaa dhici doonta mararka qaarkood inuu programkaagu yahayba adigoo walad ku gashay inaad aragto akoon $100, $500 ku jirta micnaheedu taasna waa risk management iyo aan kasoo hadlay videogii hore inay aad iyo aad very bad u tahay sidaa darteed marka intaas ayaa dooranaysaa create akoon ayaa leedahay oo adaabti information qaldan oo laakiin shaqeynayo waa inaad gelisaa okay akoonkii wuu soo saari doonaa akoonkii sidaan ayuu usoo bixi doonaa hadduu alla insha allahu tacaala haddii aad aragto waa kana akoonkii $3,000 geedkaan ay soo jiidaysaa waa demo akoon haddii aad fiiriso waa demo akoon okay demo akoon maadaama uu yahay marka calaamadan labada fallaar ah ayaad ku dhufanaysaa sidaan ayuu ku tusi doonaa intaan lacag ayaa hadda ku jirta oo ku meesha ku saaran shaashada so kuwa kaa maqan ayaad rabta ayaa soo gelisid okay plus ayaad leedahay forex ayaad tegaysaa Australian Eurocard only click ilaa siinaysaa dhammaantood haddii aad u baahanta click that means waxaa waaye ayaad ku sameynaysaa waa kusoo darsanaysaa markaa so kadib forex to USD waa major currency USD jeed waa ka tegana USD dollar Hong Kong dollar badanaa dadka ma trade galayaan goldigii waa kana zaf USD waxaa loo yaqaanaa goldigii caadiga ah zaf Australian oo gold Australian ah oiladii waa kana crude oil haddii aad aragtay WTI oil okay waxaa loo soo gaabiya US oil CO oil macnaha crude oil weeyaan okay UK oil parent WTI crude oil waa kana sometimes labadooda waad ka dhex helaysaa broker sometimes mid kamid a ayaad ka dhex helaysaa okay intaas markuu yahay cryptocurrency bitcoinkii iyo waxyaalahaas laftirkooda trade oo ku sameyn kartaa walow laakiin uu yahay high speed ah qofka uusan ka bixi karin hadduusan akoon weyn haysanin intaas ayaa ugu muhiimsan marba haddii aan major currency-yadii iyo minorkii iyo aan soo gashanay commoditieskii iyo haddii aan soo gashanay uma baahnin cryptocurrency-ga inaan soo gelino maadaama tradada aan badanaa lagu sameeyin okay so waxaad kasoo adgari kartaa meeshaan ayaad kaga soo darsan kartaa shay haddii aad weyso oo aad meesha ka weyso inta ayaad ku dhufanaysaa kadib haddii forex ay tahay waa ka raadinaysaa boxada haddii commodity ay tahay waa ka raadinaysaa commodity caadi wuxuu kusoo qabanaya gaasoliinkii iyo sugarkii iyo kuwaas haddii aad u baahan tahay haddii kale oiladkii oo kale CFDs waxaad ka raadinaysaa allahu mustacaan kuwan waa waa kambaniyada waaweyn waa kambaniyadii waaweyn oo laga leeyahay waxaa laga leeyahay jarmalka ingiriiska maraykanka faransiiska weeyaan intaasba waad ka helaysaa soo mid walba marka waad ka raadi kartaa oo wax kaga raadi kartaa mid walba wuxu uu quseeyo ayay ka raadi kartaa okay mostly olyada oo kale wuxuu kusoo qoraan oo kale CFDs oil oo kale waxyaala lamida sidaas oo kale ayay kusoo qoraan laakiin marka haddii sidan ay kugu jirto crude oilkii waa kana UK marka waxaa la iska fiiriya had suuqa uu xiran yahay marketka uu xiran yahay laakiin waa inaad iska fiirisa spreadka udhexeeya okay spreadyada brokerada qaarkood waa waali olyada oo kale markii la trade gareynayo dadku waa inay aad iyo aad iskaga fiiriyaan sidoo kale FXTM oo kale brokerada review waa kasoo dhiiban doonaa broker qaarkood waxaa jira lacaga
aad iyo aad spreadkooda waaweyn insha allah waan arkaynaa. Okay, sidaa markii aad joogto marka waxaad rabtaa inaad dalbato one by one inaan u sharxno. kan waxaa weeyaan waa chartkii windowgii weeyaan, chartkii windowgii. kan waa aad ku ogaan karto tradyada kuwa furan, balansigii, equitygii iyo tradyada markaas running ku socdo inta ay soo kori doonaan. qaybtaan hoose oo lacagtan ka hooseysa ay soo safan doonaan, qaybtaas korna intii ay marayso faa'iido ama khasaaro ay kusoo kori doonta. ku xiga waxaa weeyaan waa history, waa qaybta historygii, trade historygii. balance iyo depositka hadda wuxuu noo sheegaya 3,000 waa demo account. sidaas darteed marka laba mid waa ku ogaan kartaa oo ah marka aad rabto trade historygii, taariikhda account-kaaga inaad fiiriso, inaad qaybtaas calendarka aad taawato last week, last month, last 3 months aad ku dhufato kadib oo kuu soo saaro statement saxan oo full ah. tradeka waqtigaa furtay xitaa inuu hoos kugu soqo stop losskiisii iyo kulli shay, profit intaa heshay iyo khasaare intaad heshay. kan kale waxaa weeye orderkii timeka furtay calaamadiisii iyo wax walba inaad aragto hadduu alidma insha allahu tacaala. kana sidoo kale all symbolskii inaad aragto inta wuxuu kugu soo qorayaa sometimes newsyadii iyo howlahaas ayuu soo geliyaa brokerka. marka intaas laga soo tago marka waxaan rabnaa hadda inaan fiirino pound gb waa kasoo qaad. waxaad haysataa telefoonada touchka, waxaad samayn kartaa laba mid, inaad click siiso oo kuusoo boodo windowga yarka ah oo ku qoran pound gb midka aad doorata ah, new order inaad order aad dalbato, chartkii inaad furto oo aad furto pagekii aad furto ama shaashad ahaan aad u furato oo kusoo saaro pagekii ama graafkii pound gb. okay, sample propertieski inaad akhrisato, spreadkiisii, wax walbo ay ku sheegaan one by one, swaabkiisa, waxa dhan qaabka u yahay. okay, wax walbo in uu ku sharxo hadduu alidmo. so marka intaas aad samayso simple view mode-ka waxaa weeyaan wax kale ma aha, xoogaa wuxuu kaa qarinayaa mashqada ah in tusaale hadda aan fiirin advance view mode. advance view mode-ka waxaad arki kartaa spreadkiisa, aad arki kartaa, waxaad arki kartaa lowgii meesha u hooseysay oo maanta qiimaha uu tagay iyo highgii meesha ugu sareysay inuu tagay. okay, so waxaan dhihi karnaa hadda pound gb what is the pound gpy? pound gb waa kana pound gb waa 145 waa lowgiis meesha ugu hooseysay oo maanta u tagay, meesha ugu sareysayna uu tagay 144.44. beeniyada waxaa waaye intaas ayuu dhixiyay maanta. buy iyo sellkiiba qofku kaga faa'iideysanaya. sellka hadduu 40 ilaa 44 uu kasoo galay faa'iido ayuu ka qabtay, 75 ilaa 80 hadduu ka galayna u buy uu ka galayna maanta faa'iido ayuu ka qabtay. okay, sidaas darteed marka waxaan rabnaa qaybta ugu muhiimsan inaad tagno. open chart ayaa leedahay, graafka ayaad furanaysaa. okay, graafka marka allaala markii aad furto window waxaad haysataa oo indicatorska oo kusoo akhrin doona hadduu alidma insha allah. waxaa saaran RSI iyo MACD. RSI kulli ma arkaysid, hadda waxaad arki kartaa MACD ayaad arki kartaa. kan waa MACD indicatorskii. okay, maxaa rabaa waxaad samayn kartaa chartka markuu sidan u yaalo qaab qorshe ayaa loo sharxaa. chartka waxaa loo sharxaa, waxaa loo samaysan karaa in technical ahaan iyo trend ahaan loo samaysto ama loo qurxiyo oo lagu habaysto waa samaysan kartaa. oo trendkii up iyo support resistance inaad u samaysato, hadduu soo jibiyo aad meeshaas buy iyo sell, buy stop iyo sell stop waxaad rabto aad dhigan karto. okay, haddii sometimes oo computerka ay ka fogtahay, laakiin badanaa waxaa fiican computerka ayaa aad iyo aad u fiican. okay, chartka markuu sidan yahay keliga haddii touch screenkaaga aad siiso waxaad arkaysaa time frameadii oo dhan ayaad arkaysaa. 1 minute, 5 minutes, 15, 30, 1 hour, 4 hours, daily, weekly, monthly. okay, so midka arta hadaa ku dhufatid isla markii chartkii loading ayuu ku sameynaya oo wareegaya 4 hours ayuu ku tusinaya. okay, 4 hours kadib wuxuu tusinaya candle weyn soo dhacay. so 1 hour kii 30 minutes kadib aad aragto waxaad arkaysaa intaan oo dhan inuu soo dhacaya qiimaha. okay, sidaas darteed marka qofku wuxuu samayn karaa intaas markay tahay window ama time frame aad meesha aad ka bedelayso dhinacaas aad kaga bedeli kartaa. haddii kale qaybtaas sare oo clock camal u eg timeka ayaad
kaga bedeleysaa minutyada timeyada iyo waxyaalahaas insha allah. qaybtan bidixda pluskana waa orderkii ayaad ku dalbanaysaa, waayo uma baahnid adigoo chatka jooga isla markii inaad back aad dhahdo oo main pageka inaad tagto punchb waa click aad ku siiso new order aad dhahdo kama gaartid. okay, qiimo waxaad aragtid degdega inuu ku dhacayo, sidaas darteed marka automatically mobilekaada isticmaalayso plus ayaad leedahay. plus alaal markaad dhahdo waxaad sameynaysaa waa kana orderkii ama pagekii orderka oo aad ka dalban lahayd. market executionkii waa tii casharka hore ku sharxanay, isla markii waqtigan ayaad gelaysaa priceka meelaha u maraayo adiga oo stop losskii waa kana qayb stop losska haddii aad rabto sell waxaa weeyaan waa inaad qaybta kor aad dhigataa stop losska. haddii uu buy u yahayna qaybta hoose oo micnaheedu tahay 143 numberkan wax ka hoose ay stop loss soo dhiganaysaa. okay, taasna waa very important qofka inuu fahansan yahay. buy limit haddii boxkaas aad dhigto marka buy limit market executionkii waqti xaadirkaas waa inaad doorataa. santan dadku confuse ayay ku noqotaa. qof buy limit loo soo geliyay oo kale signal kasoo qaad meel ayuu signal ka helay, sidaas darteed marka qofkii buy limit ayaa loo soo geliyay hadduu market execution uu ku galo micnaheedu waxaa weeyaan waa dhib, waayo numberkii loo soo geliyey oo ah in meel lagu sugo buy limit video ka horeeya ayaan ku sharxayna order typeska hadduu leedmo. kadib ayaa waxaa dhici doonta insha allahu tacaala in aan sameyn in qofkii uu qalad sameey marka. okay, qaladka sidaas iskaga ilaaliso waa inaad iska fiirisaa boxka ku dhoon sell stop me buy stop me market execution as default markaa soo gasho market execution ayaa u dooran. okay, kadib marka stop loss iyo take profit kii waa kana haddii aad take profit 00 ayuu ku noqonayaa waa open only. stop loss waa must waa qasab, waayo stop loss wuxuu aad muhiim yahay akoonka risk management ayuu yahay. haddii stop loss open aad ka dhigto micnaheedu kasoo qaad aan fiirino dailyga oo kale chatka oo punchpy waxaa dhahda meeshaas ayaa buy ka gashay 146.98. okay, qiimaha muxuu maraya 144. haddii buy aad dhahday stop losskii uu ka open aad ka dhigto micnaheedu waxaa intaanu dhan khasaar ayaa ku jirta. okay, sidaas darteed marka waa inaad ka taxadirtaa stop losska mar walba. then marka stop losska waad ku buuxinaysaa lotka inta ayaa ka bedelaysaa minus 0.1 haddii aad dhahdo hal mar ayuu wuxuu goonaya 10 cents. okay, 9 cents ayuu ka gooyay 0.1 11 10 ayuu ku darayaa 21 31 41 micnaheedu waxaa waaye wuxuu dhigmaa $4.1 ayuu dhigmaa muxuu halkii oo aad faa'iida aad ka qabato. okay, 100 points haddii aad qabato micnaheedu waxaa waaye $400 ayaad gacanta ku dhigaysaa. haddii kalena uu 100 bits oo losskaagu yaana khasaare ayaad ku dhigaysaa. brokerada qaarkood waa sidaas. okay, lotka iska dhe 0.10 meesha ugu macquulsan. okay, halna sidaan ayaa uga jari kartaa minus 0.01 minus plus 0 sidaas ayaad ugu daraysaa. sell iyo buyna sidaas ayaad ku dooranaysaa insha allah. hadda suuqa uu xiran yahay haddii sell aan dhaho oo kale wuxuu isoo qaban doonaa market closed. okay, maadaama ay tahay maanta Saturday. okay, intaas marka ay tahay chatka ayaan ku laabanayna oo aan rabnaa inaan markale aan sharxno sidee indicators ama moving averageda ama aan u sawirin karaa trendlineyada sideen u sawiran karaa. okay, waxaad leedahay calaamadaas waxaad dooranaysaa efta ah. main chatka waxaa ku jirto laba moving average ayaa ku jira. okay, laba moving average ayaa ku jira. labada moving average remove ka dheh. okay, iyo RSI-ga ka soo qaad remove dheh. okay, hadda waxaa aragtaa chatka inuu clear u yahay. sidaas darteed marka waad ku laabanaysaa meesha. mar allaala markaa ku laabato waxaad soo dooranaysaa trankiyadii waa kana oscillatorskii waa kuwana oo muxuu ahaay maabdiyadii momentumkii iyo RSI-gii kulli ay ku jiraan. volumeskii bilwilliamskii qof allaale marka qofku wuxuu rabo inuu barto ama indicator sida uu isaga u bartay inuu soo geliyo hadduu rabo sidaas ayuu u dooran karaa. okay, intaanu ayaad haysataa. intaa mar allaale markaad haysato marka
waxaad samaysaa moving average kana soo door hadda kasoo qaad 10 ilaa 8 cisho simple ani waxaan rabnaa ma rabno inaan hadda sharaxno laakiin qaabka u soo gelin lahayd okay kalarka wuxuu ka dhigayaa blue dan ayaad leedahay okay moving average ayuu ku soo gelin doonaa insha Allah waa ku laabanaysaa haddana okay waxaad dhihi doontaa haddana insha Allah main chart ayaad leedahay waxaa kasoo dooranaysaa kasoo qaad RSI or relative strength index ama MACD kasoo qaad ama RSI okay RSI 14 kalarka u bedel guduud uga dhig okay dan automatically RSI main chart kan ay ku saaray ku laabo mar kale oo ku soo darsan kartaa one more moving average plus aad leedahay okay one more moving average mar alaal marka aad ku dareysa marka waa inuu ka duwan yahay kii hore haddoo leedna insha Allah taala maadaama isku mid ay yihiin waa inaad maalmaha aad ku cabirayso ama aad saarnayso waa inaad iska fiirisaa okay so hadda waxaan dhahaynaa 28 iska dheh kalarka u bedel madow ka dhig cross over ayuu sameynaa okay so madowgii waa 28 kana waa 18 RSI waa kana sidaas marka aad usoo saarato indicatorsadii adiga qaabka aad u barato iyo strategy aad isticmaalayso sidaas ayaad usoo gelin doontaa insha Allah waxaa kale oo aan rabnaa inaan fiirino hadda waa leedna insha Allah taala wax la yiraahdo ishak qaabka aad usoo gelin doonto hadda waa leedna insha Allah taala line-yadii Allah musta'an faatinaajyadii qaabka aad ugu sawiran lahayd waa ku sawiran kartaa okay touch screen-ka ayaad kala ku siinaysaa calaamadan aad ku aragto yaroo shape-ki iyo triangle-ki iyo ay ku jiraan aad kala ku siinaysaa inta waxaad ku haysataa lines-ki ayaad ku haysataa triangle oo kale marka aad rabto arrow oo kale waad rabto inaad ku cadayso qiimaha inuu kor aadayo tusaale arrow aan doorto qiimaha intaan kaga bilaaba waxaan leeyahay tusaale ilaa inta ayuu tegi doonaa profit okay sidaas ayaad ku samayn doontaa so markaas waxaa leedahay qiimaha inta markuu marayo ayaad calaamadii ku cadaysay kadib ilaa meesha ay tegaya qofkii marka hadhow screenshot ayaa uga qaadaysaa si aad u tusiso qofkii in signalskii ama hooshii ay saxan tahay aysan ahayn wax afka laga sheegay only oo markii horeba lasii calaamadeeyey in uu aadi doono okay waxaa kaloo aad samaynaysaa oo ku laabanaysaa meeshii plus aad leedahay waxaad rabtaa inaad sawirato haddii meesha uu ka bixi lahaa train line-kii waa kana okay inta ay kaga soo bilaabaysaa trainkii inta ay kaga soo bilaabaysaa micnaheedu waxaa leedahay meeshaas baa duu jibiyey waxaa waaye qiimaha kor ayuu aadi doonaa okay inta ay calaamadaysay 4 hours-kii waa uu jibiyey laakiin wuu kusoo laabtay hadda sidaas darteed marka hadduu kasii kormaro hadda intaan fake break out ay noqoto micnaheedu waxaa weyaan qiimaha halkaas ayuu tegaya kasoo qaad sidaas ayaad aaday okay sidaas ayaad u isticmaalaysaa waxaa kaloo samayn kartaa labadan ayaa hadda ku jirto waan ka tirtiri kartaa one by one adigoo u saaraysid Allahu musta'an kilig ayaa siinaysaa only waa riixaysaa delete ayaa leedahay kana sidoo kale waad select garaynaysaa delete ayaa leedahay okay hadda waxaan rabnaa inaan ku soo darno channelskii waa kuwana gaankii faatinaajyadii waa kuwana okay ayagoo kala duwan elite wave-kii waa kuwana shapeskii waa kuwana triangle amba ellipse amba rectangle so marka waxaan rabnaa tusaale Fibonacci retracement oo kale inaad saarna kasoo qaad okay Fibonacci retracement inaad saarna kasoo qaad sidaas ayay usoo jiidaysaa ilaa waxaad keenaysaa meeshaas ugu hooseysa okay so hadda waxaan dhihi karnaa waxaa laga soo celiyey 38% ayaa laga soo celiyey maadaama qiimaha uu meesha ku aadaya okay ayaa dhihi karnaa sidaasoo kale ayuu qofka u saaran karaa okay sidaasoo kale ayuu u saaran karaa abdualidin insha allahu tacaala isagoonan aanan isdhigin Fibonacci retracementkii then waxaa leenahay 61 waa kale waa laga soo celiyey 38 waa markaan oo cuskaday 61 uu soo dhacay 38 hadda sidaas okay Allahu musta'an marka waa kuwaya abdualidin insha allahu tacaala
qaababkaas ay loo soo gashtaa sidoo kale linesadii iyo channelskii iyo Fibonacci retracement iyo kulli shay elite wave-kii technicalka sidaas ayaad ugu sawiran kartaa oo waa intaas aan ku laabano qaybteeni managementii aan doorano Dynamoga waa kataan soo furnay login and existing account-ka wuxuu qaabilsan yahay akoon hore u furnay real ah ayaad soo furanaysa okay broker Dynamoga xitaa waad ku furan kartaa waayo Dynamoga markaad iska soo diiwaangeliso brokerka login password kusoo diro intaad ku furan kartaa hadhow serverka meesha ah ayaad waxaa ka dooran kartaa wax la yidhaahdo hadda waxaan dhehaynaaba kasoo qaad vantage inta ayaa furan waxaan dhehaynaaba vantage sidaas ayaa ugu dhufanaysaa kadib waxaad dooranaysaa loginkii iyo passwordkii sign in waad dhihi kartaa okay sidaas markii aad samayso marka haddii aad rabto mar kale ayaa waxaa soo dooranaysaa vantage okay mar kale ayaad waxaa soo dooranaysaa vantage marka qaybtuu yahay life account hadduu yahay brokerada kulli shay sidaas ay u dooranaysaa mid allaala markii aad rabto ayaad ka dooranaysaa serverka ah Dynamoga haddaad doorato micnaheedu waxaa weeye intuu ku keenayaa haddii aad life 1 life 2 aad doorato inta ayaa ku keenayaa so marka life 2 iyo life 1 wax kale ma ahan waa real account laakiin serverka ama qaybta aad isticmaalayso oo brokerka kugu diiwaangeliyay ayaad dooranaysaa loginkaaga iyo password ayaa geshanaysaa haddii aad rabto waad save garaysanaysaa kadib sign in ayaad leedahay kadib kusoo qabanaya sidii hore oo Dynamogii aan ku galnay ayaad arki doontaa hadduu alidna insha allahu tacaala oo qaybtaan wajahada inuu ku keeno kadib plus iyo kulli shay oo ku tusiyo aad sidaas u isticmaasho insha allahu tacaala qaybtaan waa qaybta aad ka ogaanaysa inta signbal oo kugu jirto intana waa kaga soo gashan kartaa okay labadaas qaybba waa kasoo geli kartaa inaad pluska toos usoo gasho iyo inaad dhinacana kasoo gasho waad ku mahadsan tahay daawashada videogan intaas ayay kusoo gebagabeynaya sida loo isticmaalo MT4 asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsan tahay daawashada videogii aan uga soo hadlaynay habka ama qaabka loo isticmaalo MT4 waa another video iyo next day and next week insha allahu tacaala subscribe haddii aad ku cusub tahay channelka like share comment and share